maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxay xukun dil ah ku fulisay Maxamed Xaaji Axmed oo caan ku ahaa macallin Ilka Case iyo laba xubnood oo kale oo ka tirsan Al-Shabaab. Fagaaraha dugsiga tababarka Generaalka Haye School Blues ayaa maanta waxaa lagu toogtay Maxamed Xaaji Axmed macallin Ilka Case iyo Axmed Maxamed Haashim iyo Saalim Saciid Maxamed kuwaasi oo lagu helay dilal kala duwan ee ka geysteen magaalada Muqdisho. 19 bishii Juulaay sanadkii 2019 maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxay xukun dil toogasho ku riday macallin Ilka Case iyo xubno kale kadib markii racfaan ay ka qaateen xukun dil ah oo hore loogu riday kuwaasi oo maxkamaddu sheegtay inay dilal qorsheysan iyo weerar ay ka geysteen magaalada Muqdisho. dowladda Soomaaliya ayaa barnaamij gaar ah ka diyaarisay Maxamed Xaaji Axmed oo caan ku ah macallin Ilka Case ka uu ku qirinayo inuu ah sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo qayb ka qaatay dilal dhowr ah sidoo kalena xilal kala duwan ka soo qabtay Al-Shabaab. xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Generaal Cabdullaahi Buule Kame ayaa warbaahinta u aqriyay xukunka dilka ee lagu fuliyay Maxamed Xaaji Axmed oo caan ku ah macallin Ilka Case iyo laba xubnood oo kale oo ka tirsan Al-Shabaab. taariikhdu markay ahayd 31 bishii 12 2019 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaasha kale ah: 1 Maxamed Xaaji Axmed Ilka Case 27 jir ah, ina Faadumo Cumar Xasan ku dhashay Shabeellada Hoose. 2 Saalim Saciid Maxamed Salmaan 27 jir ah, ina Leylo Xasan Cumar ku dhashay Shabeellada Hoose. 3 Axmed Maxamed Haashim Carab 26 jir ah, ina Cadday Axmed Islow ku dhashay Shabeellada Hoose, kuwaasoo xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiyada kala ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah. eedahaasi oo kala ah: 1 taariikhdu markay ahayd 10 bishii 8 2016 marxuum Cumar Maxamed Abiikir. 2 marxuum Sareeye Guuto Bool Ismaaciil Axmed Ismaaciil Makayaalow, taariikhdu markay 28 bishii 10 2016. 3 taariikh 27 bishii 4 2017 marxuum Eki Sareeye Guuto Maxamuud Xaaji Cali. 4 taariikhdu markay ahayd 24 bishii 9 2017 marxuum Eki Sareeye Guuto Xooga Cabdulaahi Maxamed Sheekh Xasan Quruurux iyo askari ilaalo u ahaa lagu magacaabayay marxuum Ekis Dable Xooga Maxamed Bile Gacmay oo ka wada tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. 5 taariikhdu markay 16 bishii 1 2018 marxuum Cabdulqaadir Daahir Diiriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed. 6 taariikhdu markay 20 bishii 2 2019 marxuum Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud oo ahaa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. 3 xukun sane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markay 31 bishii 12 2019. maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedeysanayaasha 19 bishii 7 2020. maanta oo ay taariikhdu tahay 29 bishii 11 2020 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa. wabilaahi tawfiiq. Yusuf Maxamed Axmed, Bulsho TV, Muqdisho.